warbaahinta kala duwan ee caalamka gaar ahaan warbaahinta Israa'iil ayaa wali si weyn u qaada dhigaysa xaqiiqooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xaq ay u leedahay aqoonsiga caalamiga ah in ay ka hesho beesha caalamka. warbaahinta iyo shakhsiyaad kale oo diblomaasiyiin ahiba waxa ay soo bandhigeen dokumentiga ururka Midowga Afrika ee uu hore ugu qeexay in Somaliland iyo Soomaaliya midowgii dhexmaray sanadkii 1960 bishii July kowdeedii in aanu ahayn midow sharci ah oo sifo sharci ah ku dhacay ee kaliya ay iskood si jibba ah isugu biireen isla markaana aanu dhicin wax heshiis sharci ah oo dunida u yaala ama sharciga dawladaha midoobaya kala saxdaan ee loo yaqaano Union of Act. ururku waxa uu socdaalo xaqiiqo raadin oo arintaas ugu kuurgalayo sanadkii 2005 ku yimid magaalada Hargeysa iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaana ay aakhirkii soo saareen qaraar ku saabsan ama qiraya ama qeexaya in Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalkii hore ee Soomaaliya oo labadooduba kala ahaa British Somaliland iyo Somaliland iyo Italian Somaliland aanay wax midow sharci ah dhexmarin sanadkii 1960. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil ayaa faafisay isla markaasna baahisay dokumentiga taariikhiga ah ee Midowga Afrika ku qirayaan in midow sax ah aanu dhexmarin Somaliland iyo Soomaaliya. laakiin taariikhdaasi ay ahayd mid la marin habaabiyay oo bulshada caalamka looga dhigay in Somaliland iyo Soomaaliya ay si rasmi ah isugu biireen. Seth Kaplan oo ah barasre oo ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka ayaa kamid ah shakhsiyaadka ka qoray wax arintaasi. Seth Kaplan oo qorba baaris ah ka sameeyay xaqiiqooyinka taariikheed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dawladda Israa'iil ka heshay aqoonsiga caalamiga ah ayaa yiri ma jiro sharci caalami ah oo si toos ah u mamnuucaya dal in uu si kalidiis ah u aqoonsado dal kale. si kastaba ha ahaatee dalalku badanaa waxay tixgeliyaan buuri xeerar iyo caadooyin caalami ah gaar ahaan ilaalinta xuduudaha jira si looga hortago inay dhacaan kala googo isdaba joog ah oo keeno qalalaase. Seth Kaplan oo sii wada qoraalkiisa research-ka ah ayaa waxa uu yiri ma jiro mamnuucid guud oo ka dhan ah aqoonsiga dawladaha kala go'a ama dalalka ka go'a dalalka kale. waxaana uu tusaale u soo qaatay dalka Kosovo oo ka go'ay dalka kale ee loo yaqaano Serbia kaas oo ku dhawaaqay madaxbannaanidiisa sanadkii 2008 isla markaasna ay aqoonsadeen oo ay aqoonsi caalami ah u fidiyeen in ka badan 100 dal oo dunida ah. haddana dalka ay ka go'day Serbia ma aqoonsana oo wali waxa uu ka lushaa sida ay Soomaaliya uga lulato Somaliland isla markaasna ay markasta u sheegato in Somaliland ay ka mid tahay Soomaaliya. sidoo kale waxa Kosovo diidan 5 dal oo midowga Yurub ka tirsan kuwaas oo ka baqaya in dalal kale oo Yurub ah oo ama dalalkooda ah uu kaga kaco duufaan kala googo iyo in gobollo kale oo dalalka Yurub ka mid ah ay gooni isu taagaan iyaguna sidaas Kosovo oo kale. Professor Seth Kaplan waxa uu isagoo qoraalkiisa research-ka ah si wada ku yiri dalabka Somaliland ee aqoonsi waxa xoojinaya xaqiiqada ah in ay si dhab ah u shaqeyso sida dawlad madax bannaan oo xasiloon sida uu sheegay Kaplan. waxay buuxisay buu yiri shuruudo badan oo lagu aqoonsado iyo nidaamkii dawladnimo oo dhan taas oo ay ka mid tahay shuruudaha waaweyn ee dal lagu aqoonsan karo. 1 inuu leeyahay dad la yaqaano oo dalkaas degan. 2 in ay jiraan xuduudo sugan oo cayiman oo iyagana la yaqaano. iyo 3 in ay jirto dawlad madax bannaan oo si xoog ah u shaqeysa isla markaana hay'adaheeda dastuuriga ah iyo doorashooyinkeeda iyo hawlaheeda si gaar ah u qabsata. waxa xusid mudan in barahan sare ee jaamacadeed ee research-ka sameeyay uu kamid yahay ama muddo dheer uu kamid ahaa dadka had iyo jeer ka soo horjeeda in Somaliland la aqoonsado isla markaasna midnimada Soomaaliya taageersan. laakiin qoraalkan waxa uu ku qirayaa oo uu ku sheegay guud ahaan waan taageersanahay buu yiri xeerka ka dhanka ah in Somaliland laga hor yimaado ama Somaliland aqoonsigeeda la hor istaago ayaan aad u taageersanahay. laakiin marka xaqiiqada aan ka hadlo haddii ay cid u qalanto in la ictiraafo Somaliland ayaa u qalanta in la ictiraafo ayaa uu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay.